gabadha dhimatay waris waxaan u ahay adeerna waan u ahay abtina waan u ahay wagaag qofka laakiin geystay ee Soomaaliga qof la yaqaanay ma yahay qaabna qof nooca ayuu ahaa inta hadda xogta waa in idinkeena soo gaadhay qofkan hadda wax dilay iyo gabdhaha la laayay inta aad ka ogtihiin waxa wanaag ahayn oo hore uga dhaxeeyay family ahaan loo garanayo isaga iyadana familkiisa ay garanaysay kalsooni badan ay ku qabtay. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtayda qiimiga qayaxiga madawaydii salaamay walaalkii maslaxa abdi YouTube ka daawanaysan oo maslaxa official mar kale isku soo noqod wanaagsan barnaamijka hadalaynta bulshada iyo maanta anagu ehladii hoosaan nahay xogtii iyo wixii ugu xoogaansanaa ayaan nahay laakiin anaga nagama bixin gabdhaha waxay ka baxeen Soomaali oo dhan waxa u taagan waa Soomaali oo dhan laakiin maadaama anaga xogtii hoose aan hayno inaan idila wadaagno oo waxyaabo ku jirta banaanka socda in meesha ka baxaan ayaa maaragtay muhiim ah. gabdhaha gabadha weyn gabadha yarta dhashay iyo gabadha kaleba oo lala dilay hooyadeed labada gabdhood oo dumarka midna dhimatay midna nooshahay oo labada gabdhood ee yarka dhalay ayaan maaragtay u ahay adeer aan u ahay gabadha dhimatay waris waxaan u ahay adeerna waan u ahay abtina waan u ahay wallaahi horta xogta iyo maxaa tirahdaa wararka ugu dambeeyo waxaan ka sugi doonaa insha Allah waa booliiska oo gacanta ku haya qaybta dambi baarista iyaga noo soo saari doona insha Allah labada maalmood gudaheedana waan rajaynaynaa insha Allah inay jawaabo soo baxaan laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye oo hadda evidence oo banaanka yaal waxaa ugu weyn waxaa gaarigii gabdhaha qaaday markii dambena meydadkooda fogeeyay in gaariga gacanta lagu hayo oo arrin xaqiiqa ay tahay cidii gaariga wadayna la garanayo oo la yaqaano marka hubatay sax wey marka eedayntii dadka Kenyaanka loo haystay ayaa meesha ka baxaysa. Okay wagaag qofka laakiin geystay ee Soomaaliga qof la yaqaanay ma yahay qaabna qof nooca ayuu ahaa inta hadda xogta waa in idinkeena soo gaadhay laakiin wali in detailskiisa lala soo wadaago maxaa tirahdaa social media wax qorshaysan wali ma aha oo fasax laynima siinin lana garanayo marka maxaa ka dhaxeeyay qofkan hadda wax dilay iyo gabdhaha la laayay inta aad ka ogtihiin waxa wanaag ahayn oo hore uga dhaxeeyay family ahaan loo garanayo isaga iyadana familkiisa ay garanaysay kalsooni badan ay ku qabtay. waa adeerka maama waris maamadii lagu dilay dalka Kenya ayada iyo carruurteeda waxa uu ka hadlayaana waa dhibaatadii dhacday iyo dadkii ka dambeeyay waraysi lala yeeshay maadaama rabo in la ogaado xaqiiqda dhabta ah iyo dadka ka dambeeya dilkooda qofka la qarqarinayo oo la leeyahay wax wanaag ah mooyaan xumaan kama dhaxaynin waa ninkii odaga ahaa ee Hashim waxaa la sheegay inuu markiisii horeba oo isku deegaan ahaayeen oo isku meel ay ka yimaadeen oo kadibna aqoon asaga ay taqaanaan darteeda ay customer uga dhigatay si taksiga oo ugu qaado mar walba. waxaa kaloo jirta gabar lala qabay maama waris oo looga shakisan yahay dilkeeda inay ayada ka dambeysay oo ka timid dalka Ingiriiska walow la sheegay in markuu falku dhacay kadib ay ayadana Ingiriiska ay dib ugu laabatay. dowladda Kenya waxay sheegtay in gabadhaas laftirkeeda tuhun oo soo galay baaritaanana la sameyn doono ku saabsan maama waris xaaskii minyarada ahaa ee lala qabay. arrinkan sida muuqata dadka madowga ah in la adeegsado mooyaane shirqoolka banaankii ka yihiin. Soomaali ayaa shirqooshay lacagna ku bixisay balse waxa ay ka damacsan yihiin iyo danta ay kala hayeen waan ogaan doonaa insha Allah taala bal muuqaalkan ila sii daawo. ma wax ganacsi ka dhaxeeyay inta ogtiin idinka maya ma u malaynayno inuu ganacsi ka dhaxeeyay wagaag doctor waxa ku jirta suuqa oo baraha bulshada si weyn loo wadaa in gabadh kale lala qabay gabadhii kale ee lala qabayna ay masteertay waliba ay meel kale wadan kale ka timido qorshahan iyadu ay fulisay bal idinka ka qoys ahaan maxaad ka ogtiin arrinta
والله أنا كقوس أهان وركز أنا لفتك أن بناك وكما غليني لكن أنت هذا أرمها ربطة investigation كإيهولها أي سعودان خاصة حليري قدام بي أما حالي هالنقطة أما ما أنت هالنقطة تونكاس أنا كل شخص أهم وأجسي أنا يا قبل إني معناها أنتن أي لوك كلها قبل واجبنا إنه لا نقبي لكن إن لوك كلها هاي تونكيد أدبو أجسي أنا يا حقيقة الله ما هي معنا أقل ما هي ولو أن ربين إن هرلعو أنت عدينت بوليسكا أما شيء جديد أي كإيمان يسوع ما إيه كار لكن ما له هي أنت بدن وحوي إن قبل أساس الكل. أوكي واجك بلك كلا وحاجرتا إيادنا ورشيجيا قبل كلا تأوض أنت يبقى ميدك كلا صهري صو أرضي إيادنا ستيشن كتكتور تري أنا جانا والله لا أفضل كوف سبان اللي جيستي لعج هالمليون isku ayaan ku bixiyay oo aan isku soo furtay oo madax furashaan iska bixiyay iyada bal arintaas bulshada Soomaaliyeed maxaad kala wadaagi kartaan والله إنه أنا كطلع هان قبلها تركودا واحد دولة إن لسه ذاك تقولي جبر بان حينا وفلكاس كعادي هاي أما فلكاس جوكتي مجيرين mas haddaysan ka fursan weyso qof goobjoog ahaa wuxuu ii sheegay inay gabar Soomaaliyeed oo aan la garanaynin waxa ay tahay macnaha inay arrintaas intay imaatay qaabkaas u hadashay laakiin isku soo wada duuduub annaga hadda warbixin oo dhinacaas oo dhinaca booliiska naga soo gaartay in qofkaas loo hayo ma jirto laakiin waa ka dhegeysanay idaacadaha waan ka maqalnay wararkaas suuqa oo ama social media-na waan maqalnay idaacado weyn oo TV-ga waddankana waan ka aragnay laakiin iyadana ma hordhe muuqaalkeena intaas ayuu ku ogyahay muuqaalka xigintaan ku tagi doono waa walaalkiin Maslix Cabdi oo idin ka codsana in channelka aad subscribe dhahdaan si aan hiigsigeena 100,000 aan u gaarno muuqaalkaana videoga like ku siiya si aan u helno asxaab qurux badan sharaf badan wanaagsan sida adinku kala Soomaalidan aan u duceeyno insha Allah taala in Ilaahay dhibka ka saaro inta xanuunsan Allah caafiyo inta xabsiga ku jirta Allah ka soo bixi inta waxaysan Ilaahay waxa siiyo inta waxaysatana wuxuu Allah u barakeeyo Soomaaliyeey gacmaha isqabsada insha Allah taala assalamu alaykum